سورة وحين باللوني سقال هي سيديتنات مقعيدة سورة الفجر بالليلة عبارة سورة أبوه الرئيس والفجر أي يكون مقعظم تاي يدنا هو سورة مكية ووحي كمتاي سورة دي سودة كنت رسولك ومكا كنولا أي ذهد صدنوي qof kasta oo inaga mid ah codkan mar ayuu maqlay ama cashir ha ka raacdo oo cilmi ha ka dhageysto ama isaga oo wadada marayo dhegtiisa ha ku soo dhacdee waa sheekheennii Sheekh Cumar Faaruq naxariistii janno Allah ka waraabiye waxaan isku dayi doonaa in aan taariikhdiisa oo kooban halkan in kula wadaagno Sheekh Cumar Faaruq waxa uu ku dhashay degmada Qooxle oo Qalaafo iyo qabri Dahre u dhaxaysa halkaas oo magaceeda caanka ah yahay Carmaale waxa uu dhashay sida la sheegay goor barqa ah maalin khamiis ah xilli dayr ah sanadkii 1949 bisha Salame yaqaano Carmaale waxa dariiq diimeed ku hayay aabiis Xaaji Cabdi Suldaan dariiqadaas oo ka koobnay dugsi Quraan oo uu hayay wadaad la oran jiray Macallin Cusmaan Macallin Dhicis iyo cilmiga uu isaga akhrin jiray Sheekh Cumar Faaruq waxa uu ka dhashay qoys diimeed aabiis Xaaji Suldaan Xaaji Maxamuud waxa uu dhintay isaga oo 3 jir ah hooyadiis Caashe Sheekh Axmed Guurana waxa ay xijaabatay markuu 5 sano jiray Quraanka waxa uu dhameeyay oo uu xafiday isagoo 7 jir ah dabadeed Quraankii waa uu hilmaamay sababtuna waxa ay ahayd isagoo ku mashquulay wax loo yaqiinay shicir oo dhaqan u ahaa qoyska uu ka dhashay ilaa uu shicirkiina dusha ka qabtay marka Quraanka Sheekh Cumar Faaruq 3 goor buu dhameeyay kadibna isagaaba macallin dugsi noqday oo mar labaad ayuu Quraanka dusha ka qabtay markaas oo 14 jir ahaa mar waxa uu ku qabtay dugsi magaalada Qalaafe isagoo kutuba ka raacdo oo xir ah una dhiga caruurta reerkii uu markaas uu la noolaa reerkaas oo uu lahaa nin la oran jiray olol diinle waxay saaxiibo ahaayeen aabiis dugsiga labaadna waxa uu u qabtay niman reer ugaas la yiraahdo oo deganaa meel loo yaqaano Maracaato Sheekh Cumar Faaruq cilmiga isagoo 14 jir ayuu fiqiga ka bilaabay kitaabka Safiinatu Salaat ayaa waxa uu bilaabay Sheekh Cusmaan Jirre Sheekh Xuseen Dhaqane Sheekh Usaan horeyba u soo sheegnay waxa uu ka dhashay qoys diimeed naxariistii janno Allah ka waraabiye Sheekh Cumar Faaruq waxa uu ka soo jeedaa qoys culimo ah meelaha uu cilmiga ka raacday sheekha waxa kamid ahaa masjidkii Marwaas ee magaalada Muqdisho oo isagoo xerow ah uu lixdameeyadii yimid kana raacday kutubta shuyuuqdii soo wax bartay waxa kamid ahaa Sheekh Ibraahim Suuley iyo Sheekh Cabdikariim Sheekh Khaliif oo isagana tafsiirka ka bartay waxbarashadii sheekha dhinaca luqadda Carabiga guriga ayaa loogu akhrin jiray niman walaalihiisa ay kamid yihiin Sheekh Shaafici Xaaji Cabdi Suldaan iyo Sheekh Murshid ayaa si toos ah ugu akhriyay naxwaha Juroomiga Cimriidiga Mulxaha Mutamimka Qadriga iyo ilaa Alfiyaha qaybta sarfiga waxa uu akhriyay wadaad awowgiisa oo la oran jiray Xaaji Maxamuud Xaaji Cabdulle tafsiirka waxa uu akhriyay wadaad la oran jiray Sheekh Yuusuf muddadaas oo magaalada Qalaafe xir ku ahaa cilmiga xadiiska ayuu markaa nin Sheekh Ibraahim Maxamuud Cali Sheekh Ibraahim Suuley ka akhristay dabadeed Cumar Faaruq waxa uu galay madrasa ku tiilay Xamar oo la oran jiray Macadudiin bil Muqdisho oo masaaridu dhigi jirtay halkaas waxa uu ku dhameeyay dugsiga dhexe dugsiga sare waxa uu ka dhameeyay Macad Al-Tadaamun Al-Islaamiyah bil Muqdisho oo ku ooli jiray lambar 4 oo Sacuudiga maamuli jireen kadib waxa uu galay jaamacadda Madiina kulliyadda ad-dacwa wa usuuluddin markaas oo taariikhdu ahayd sanadkii 1975 wuxuuna ka qalin jibiyay 1979 Sheekh Cumar Faaruq jaamacadda markii uu dhameeyay waxa uu bilaabay fidinta diinta Islaamka isagoo xarintiisa tahay Sacuudiga waxa uu duubay cilmi fara badan oo ay kamid yihiin kutubo badan oo ilaa iyo 12 kutub oo tafsiir ah iyo siiro oo dhowr kutub ah Minhaajul Muslim Taysiirul A'laam 40 Nawawi iyo kutubo fara badan oo noocyadaas oo kala ah intuu uu joogay Sacuudiga kutubadaas ayaa gaaray Yurubta iyo Ameerikaba kutubadaas darteed baa dadkii ku noolaa dibadda ay jeclaysteen inay mar un arkaan sheekha markaasoo sanadku ku beegnaa 1993 bishii July 12keedii ayuu sheekhu tagay dalka Sweden Norway Denmark Finland Switzerland Ingiriiska oo dhammaan ku qabtay maxaadarooyin iyo duruus diini ah oo kalaba kadib sanadkii 1996 ayuu ku noqday Soomaaliya waxa uuna tagay magaalooyinka Muqdisho Marka Qoryooley Afgooye Walaweyn Buur-Hakaba Baydhabo Sheekh Cumar Faaruq inkastoo uu diinta guud ahaan si weyn u yaqiinay haddana waxa uu ku caan baxay tafsiirka Quraanka Kariimka wuxuuna ahaa sheekhii ugu horeeyay ee taariikhda Soomaalida oo cod ku duubay cajalado sanadkii 1982 safaaradda Soomaaliya ee dalka Sacuudiga ayuuna ku qabtay albumkiisii ugu horeeyay oo turjumada Quraanka Kariimka ahaa masjidkii uu sida weyn uga akhrin jiray sheekha waxa kamid ahaa Masjid Ibraahim Uunlay ee xaafadda Wadajir ee magaalada Muqdisho
waxaana sheekha la sheegay in culummada kale ee Soomaalida uu uga duwanaa xagga tafsiirka Quraanka isagoo ah nin af Soomaaliga aad u yaqiinay balaaqo ama hadal deeqsiinna ay ahayd mid soo jiidasho leh ama wax fahansiintiisu ay aad u fiicneed waxaana tusaale loo soo qaadan karaa kumanaan cajalada ah oo Soomaali badan oo weligood sheekha arkin ay haddana cilmiga tafsiirka ka barteen maqal ahaan cajaladihiisa kuwaasoo ku taxnaa cajaladaha masaajidada laga shido ama laga daaro bismillahir rahmaanir rahiim abda hadhihi suura waxaan suurada tan ku bilaabaya bismillah alla magicii uskashadi allihii arraxmaan naxariis guud addoommada wada gaarta naxariista arraxiimi mid gaar ahaaneed naxariista wey qaala tacaala waxaa kaloo jiro cajalado uu sheekha kaga hadlayay cilmiga axaadiista fiqiga iyo naxwaha iyagana af Soomaali ku duuban waxaana Sheekh Cumar Faaruq lagu tilmaamay inuu ahaa caalim Quraanka aad u yaqaanay tafsiirkiisa iyo shariicada Islaamka meel fogna ka gaaray artii ka aflaxday aqoonta sheekh iyo mawlaca sheekha waxaa ka mid ahaa Sheekh Nuur Baaruud Xuseen Sheekh Cumar Faaruq intii ka dambeysay burburkii Soomaaliya waxa uu waday barnaamij ballaaran oo ka koobnaa 3 qayb kan hore waa mideynta culummada diinta abtirsada mid ama xisbi ha ahaadeene kan labaad la talinta iyo toosinta ragga qabqablayaasha ee siyaasadda Soomaaliya iyo qaybta saddexaad oo ah waxbaridda ummadda Soomaaliyeed oo sida uu sheekhu sheegay goor dambe Ilaah hanuunka siiyay sidii looga qabtiri lahaa diinta haday tahay akhrista kutubta ama wacdiyada iyo waanada Sheekh Cumar Faaruq waxa uu ahaa mufti ay si weyn bulshada Soomaaliyeed uga heebaysato waxqabadkiisuna uu ka muuqdo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba iyadoo cilmigii uu duubay iyo cajaladihii uu duubay dunida oo dhan laga wada raacdo dalka Sacuudiga oo uu deganaa 1974 waxa uu si toos ah u akhrin jiray kutubo kuwaas oo cajalada laga duubo maxaadarooyinkiisa ay soo gaari jireen dunida inteeda kale 2 goor ayuu geeridiisii ka hor Soomaaliya tagay Sheekh Cumar Faaruq halkaas oo uu ka bilaabay tafsiirka xaafadda kiiloomitir 4 duruustiisa oo maqal iyo muuqaalna la duubay si mar walba loo isticmaalo looguna isticmaalo faafinta diinta Islaamka si ay u fududaato faafintooda waxa uu isla markaa jimciyaasha jeedin jiray maxaadaro looga kala imaan jiray Muqdisho magaalooyinka ku hareeraysan sida Afgooye Marka iyo Qoryoole tirada ka soo qayb qisha dhageystayaasha waxa lagu qiyaasay 4000 oo qof markiiba iyadoo celcelis ahaan ay 1500 oo kamid ah haween yihiin sidoo kale Sheekh Cumar Faaruq dhulkii uu Ameerika tagay waxa kamid ah magaalada Toronto ee dalka Canada taas oo ahayd codsi uga yimid dadkii deganaa halkaas ama jaaliyada Soomaalida ee ku sugneed isagoo u qabtay maxaadarooyin dhowr ah una akhriyay kutaabo dhowr ah oo ay kamid ahaayeen العقيدة الوساطية يا العقيدة الدحاوية فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم صومالي الله كبقى وحاكلا تمنيسان كيسيو فدي يدقنان اقوض هذا الله إلى هنا تاسينو صومالي كوانونيو بانكبر يا فدنذنا وكدميو كغبوجيو وبالله توفيق geeridii Sheekh Cumar Faaruq sheekhu waxa uu ku geeriyooday magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama ee dalka Sacuudiga 8 Maarso sanadkii 2011 Sheekh Cumar Faaruq Cabdi Suldaan waxa uu kaga tagay 4 xaas iyo 15 caruur ah Ilaah qabriga ha u waasiciyay Sheekh Cumar Faaruq Sheekh Cabdi Suldaan ku talagal la jira ku talagalka alla waxa weey ninku naag la'aan ma ahan karo naagtuna nin la'aan ma ahan karo gabar qaan gaartay nin baa u baahanta wiil qaan gaarayna gabar buu u baahan yahay sidaa daraaddeed ummadda guur gaartay ee weli caddaysimaha baan rabaa inaan tilmaan gaaban ka baxsho weli toorri galla ma aragteen waxaa weeye toorridu hadday gallaadahay waa qiimi beelaysa haddana halisteeda carruurtaa laga celiyaa mindi caddaysimaa labadii dhanbana ka xiiraysa war mindida carruurta yayansanina meel baasa lagu tuuraa la yidhaah iyadiina waa dayacan tahay waana halisoo dhib baa ka imaanaya haddaba dadkan guursan maxaa ka imaanaya halistii nafteedii dadku u qubaynaya aqalladuu shanqar dhegaysanaya lagama qabaysan karo asbaab badan baa loo qabaystaay ma un musaaracada keliya loo qabaystaa dariishaduhu hanqalka ka ridanaya marka alla ka baqa
oo dadkiina caddaysimaha weli ma aragteen haan saabla bar loo qabtiyo meel laga qabtaa male laakiin hadday saab leedahay waa xayiran tahay waana hagaagsantah marka haamaha saab kala waa in la saabiyaa tooriyaha gal kala waa in la galeeya